geesiyaasha dhiiran ee u dhaartay xoreynta iyo xasilinta gobolada kala duwan ee dalka oo wada guluf dagaal oo ka dhana dhigmiiratada arxanka daran ee al-shabaab kana soo faraxashay xoreynta inta badan deegaanada xeebta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa markaan si gaar ah diiradda u saaraya xoreynta degmooyinka Kiinka webiga Kulaale ee gobolka Shabeellaha Hoose wadada dheer ee xiriirisa degmooyinka Afgooye ilaa iyo degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose waa mid ahmiyad gaar ah u leh maamulidda iyo gacan ku dhigidda guud ahaanba degmooyinka webiga mare ee gobolkaasi wadadan waxaa ku yaala ilaa iyo 4 buundo kuwaasi oo haddii ciidamada qaranku gacanta ku dhigaan ay si cad uga dhigan tahay in argagixisadu lumiyeen guud ahaanba maamulidda deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada xoogga dalka oo bilowgii howlgalkan bagaaray guulo waaweyn oo la taaban karo ayaa weli wada baacsiga kooxaha nabadiidka ah ee ku dhumaalaysanaya deegaanada farakutiriska ah ee kaga hareen gobolkaasi magacaygu waa Maryam Siid Cali Shariif sababtii ugu dhalisay inaan anigoo dumar ah aan diriiska iyo qoriga u qaato waxay tahay inaan dalkayga ku xireeyo cadawga Soomaaliyeed mid ku soo duulay iyo mid wadanka gudihiisa u dhashaba marka waxaan leeyahay wadanka anaga iskala qof wadanka naga xiga ma lahan qof walba muwaadin Soomaaliyeed oo wadanku u dhashay waajib asiga saaran waa in uu wadankiisa u xireysto howlgalla ballaaran oo isdaba jooga iyo ciidamada qaranku ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo hoos taga degmada la xoreeyay oo Awdhiigle waxaana deegaanadaasi kamid ah deegaanka Tooratooro oo ahaa saldhiggii ugu weynaa ee argagixisadu ku lahayd koonfurta Soomaaliya Ibraahim Cali Aadan Najax gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka ayaa qadka taleefanka ugu warramay warbaahinta qaranka waxa uu na faahfaahiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada qaranku ka sameeyeen deegaanada la xoreeyay howlgallo guud ahaan ayaa jira ciidanka Tooratooro oo howlgal ballaaran ay ka wadaan sidaas la mid ah deegaano fara badan oo kale ayaa jiro ciidamada hadda sida tuulooyinka Shaangare oo ka horeysaan howlgallo horena ciidanka inay ku gaareen kooxaha nabadiidka oo saldhigyo halkan ku lahaan la burburiyay ciidamada ayaa hadda howlgallo ka wada nawaaxiyadaas oo idil tuulooyinka kale Mubarak ilaa iyo dhulkaan oo idil kooxaha nabadiidka ay shirkooda shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo maamulkooda ay ku dhibaateeyaan ay ku soo maleegaan oo dhan maanta waxaan xaqiijinayaa in ciidanka howlgal ballaaran ay ka wadaan howlgalladii hore aad buu uga duwan yahay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka gobolka ku noolba waxaan u xaqiijinaynaa waxyaabaha ugu horeeya howlgalkan uu kaga duwan yahay howlgalladii hore waxaan dhihi karnaa howlgalkan waa howlgal shacabka ayaa qayb ka ah ciidamada ayaa hormuud ka ah maamulka ayaa qayb ka ah kooxaha nabadiidka ah haddii ay ahaan lahayd inay dadku ku dhex dhuuntaan hadda fursadeeda uma banaana oo shacabkii ayaa howlgalka qayb lixaad leh ka qaadanaya shacabka Soomaaliyeed oo qaati ka taagan gumaadka iyo gardarrada arxanlaawayaasha al-shabaab ayaa il gaar ah markan ku haya howlgallada xoreynta gobolada kala duwan ee dalka iyadoona argagixisadu markaan arkayaan xeelado iyo wajiyo ka duwan kuwii hore isla markaan ay ku hungoobeen weeraradii gaadmada ahaa ee ku qaadi jireen saldhigyada ciidamada xoogga dalku ka sameystaan deegaanada ay ka xoreeyaan waa astaanta dalkeena calanka ayaa iska leh Soomaaliya waa astaanta dalkeena Soomaaliya شعيب محمد علي ورباهنت قرنك مقدشو